السلام عليكم كسو دوادا أصحابي channel إذاعة بولحبي برنامجكينا فلنقينتا أريمها بريغا دحي مانتا وحينو إذنكو سو قدبين دورنا عد أحان سدح قضب أينو كاga hadli doona insha Allah Israa'iil oo sheeganaysa inay heleen meydka qof ay ugu shakiyeen in uu yahay Maxamed Sinwar waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxaynu uga hadli doonaa hooyo dhashay askari lagu dilay gudaha marinka Gaza oo sheegtay arin cabsi xoogan gelisay askartii kale ee gudaha Israa'iil ku sugan sidaas oo kale barnaamijku waxaan idinku hayaa doontii Medlin lagu magacaabay oo aad ugu sii dhow magaalada Gaza hadda maxaa dhici doona doontaasi haddii ay u dhawaato badda ama xindaabka marinka Gaza oo Israa'iil ay saartay xanibaad hagaag aynu ku bilowno qodobka koowaad Israa'iil ayaa waxa ay sheegatay maalinkii shalay ahayd in ciidamadooda ay heleen meydka qof ay ugu shakisan yihiin inuu yahay Maxamed Sinwar Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay dhawaan duqeyntii ay ka geysatay dhanka Khan Yunis gaar ahaan isbitaalka ee Yurub lagu magacaabo 13kii bishii May halkaas oo Israa'iil ay sheegtay inay ku bartilmaameysatay duqeymahaasi Maxamed Sinwar iyo saraakiil kale oo markaasi halkaasi ku sugnaa hadba maalinkii shalay Israa'iil waxay soo bandhigtay muuqaalkan aad u jeedaan askarta Israa'iil oo ay ku sheegtay inay heleen meel god ah sidaad arkaysaan oo ama drones ay duubayso muuqaalkan aad u jeedaan waxaad u jeedaan mid kamid ah ciidamada Israa'iil hoos u sii dhaadhacaya waxa sidaas kale u jeedaan tunnelkan oo ay ku sheegeen in ay tahay meeshii laga helay Maxamed Sinwar qorigaas aad u jeedaan ayaa la helnay ay leeyihiin meel kushiin ah meel xafiisyo ah marka waxay leeyihiin halkan hoose ayaana meydkiisa ka helnay muuqaalka Maxamed Sinwar ee meydkiisa ay ku sheegayaan in isagu uu yahay يعني ستوسا halkan idinku soo barnii karo waxaan ku furi doonaa shucaac maadaama ay dhici karto in YouTube-ka iyo Facebook ay soo qabtaan marka sidaas darteed Israa'iil waxay ku andacoonaysaa meydka Maxamed Sinwar ee qof ay ugu shakiyeen inay hayaan run ahaantii sidaas oo kale Israa'iil waxay soo bandhigeen isbitaalkan Yurub lagu magacaabo in uu ka mid yahay isbitaalada iska caabinta Falastiiniyiinta ay u adeegsanayeen meel ay ku dhuumaaleystaan sida iyaga ay sheeganayaan hadda muuqaalkan aad u jeedaan waa isbitaalka Yurub ay sheegeen ciidamada Israa'iil oo tanalo iyo godad hoostiisa ay ka qodan yihiin marka muuqaalkan hadda ay soo bandhigayaan waa muuqaal lagu sameeyay 3D waxay leeyihiin hoos isbitaalka hoostiisa waxa ku yaala xafiisyo iyo tanalo sida markaas aad u jeedaan hadda muuqaalkan waxaad u jeedaan tanalkii oo ay leeyihiin sidaan ay u qaabaysan yahay muuqaal rasmi ah ma aysan soo bandhigin laakiin waa iyaga sida ay sheegayaan oo computer ay ku sameeyeen marka run ahaantii arinkaas waxay keentay Israa'iil isbitaalkaasi yani ku yaala dhanka koonfureed ee Khan Yunis sida yani dhilqa guri gale camal inay u jajabshaan oo cagacagafyadoodii iyo qalabkoodii oo dhan ay isugu geeyeen halkaasi iyagoo yoolkoodu yahay in isbitaalkaasi guud ahaanba dhulka ay dhigaan tan ilaa 7 Oktoobar waxaan la soconaa Israa'iil waxay yoolka ama diiradda ay saaraysay in ay burburiso guud ahaanba marinka Gaza isbitaalada ku yaala ama adeegyada muhiimka ah iyadoo ujeedadoodu ay tahay markii Israa'iil ciidankooda ay ku fashilmeen dadka marinka Gaza degan in dhulkooda laga qaxiyo meel ay u soo laabtaan inay waayaan dadkan ama meel ay adeeg caafimaad iyo adeeg biyo iyo adeeg wax walba oo nolosha bini'aadamka ay ku saabsan tahay meel ay ka helaan si aysan u helin ay Israa'iil u sameynaysaa inay burburiso guud ahaanba halkan aad u jeedaan isbitaalkii marka hadda waxay leeyihiin waxaynu ka helnay hoostiisa Maxamed Sinwar meydkiisa qafaan ugu shakinay waxaynu baari doonaa DNA-da waa sida markaas iyaga ay leeyihiin insha Allah wixii arinkaas ka soo kordhay iska caabinta Falastiiniyiinta waxay ka yiraahdaan dib ayaan halkan idinku la wadaagi doonaa haddaba aynu eegno arinta cabsida xoogan gelisay ciidamada Israa'iil ku sugan gudaha marinka Gaza wargeyska lagu magacaabo Yadcud Ehronos ayaa isagoo soo xiganaya hooyo askari Israa'iili ah oo lagu magacaabo Tom Rodstein oo dhawaan lagu dilay weerar ka dhacay Khan Yunis ayaa waxay wargeyska u sheegtay in ciidamada Israa'iil ay ku wargeliyeen wiilkeeda uu dhintay laakiin meydkiisa ama hilibkiisa aan la helin laakiin la aqoonsaday oo kaliya DNA-diisa arinkan oo ku noqotay ciidamada Israa'iil iyo shacabka Israa'iil arin ay ka argagaxaan hooyadan waxay tiri wiilkaygii isaga guud ahaanba waa uu baaba'ay hilibkiisa lama helin yani wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee marka qarax u dhacay qaraxaasi uu ku habsaday kuwii kale iyagoo go'an ayaa la helay ama lugu wax ka go'an laakiin wiilkaygii isaga guud ahaanba waa la waayay ay leedahay jimciin la soo dhaafay warbaahinta Israa'iil waxay sheegeen
in 5 askari lagu dilay 2 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamadan Israa'iil ay gareen guri miina ay ka buuxday oo ku yaala dhanka Khan Yunis ee koonfurta Gaza. warbaahinta sidaas oo kale sida Al Jazeera aan ka soo xiganayo waxay sheegeen in ciidamadaasi ay ahaayeen 12 askari oo ka tirsan ciidanka qaaska ah waa sida Al Jazeera aan hadda ka aqrinayo kuwaas oo galay dhismo miina ay ka buuxday oo kadib markii halkaas ay ku wada dhamaadeen ciidamada Israa'iil miinadii la qarxiyay taas oo ay keentay in uu ku dumo dhismihii dhan oo ku soo kordhumay ciidamadaasi ku sugnaa gudaha dhismahaasi. dhanka kale afhayeenka ciidamada Israa'iil Avi Dovarin ayaa sheegay in 4 askari lagu dilay halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi. macnaha waxa uu sheegay in askari kamida dhaawac culus uu qabay. runaantii marka dhacdadan waxay naxdin weyn ay ku abuurtay ciidamada Israa'iil ay ku sugan gudaha Khan Yunis dhanka waqooyiga oo waxaan la soconaa sarkaal kamid ah ciidamada Israa'iil in warbaahinta Israa'iil gaar ahaan isla wargeyskan Yadcuud Ahronoth uu sheegay in Israa'iil ay cabsi ciidamadooda ka qabaan guri walba oo ku yaala dhanka Khan Yunis oo dhanka koonfureed maadaama ay ka cabsi qabaan guri walba in miina ay ku xiriyeen oo iska caabinta Falastiiniyiinta miina ay ku diyaariyeen. hagaag haddii aan eegno qodobkeena ugu dambeeya doontii Medlin ee loogu talagalay inay jebiso xanibaadda Israa'iil ay saartay magaalada Gaza ayaa hadda aad ugu dhow xeebaha Falastiin. arrinkan ayaa wax la iska weydiinaya sababtoo ah Israa'iil sida lagu yaqaanay doon walba oo isku dayda in ay jebiso xanibaaddaas Israa'iil ay saartay marinka Gaza weerar ayay ku qaadi jirtay. marka hadda waxaa la isweydiinayaa maxay sidaas ku dhacday. sida uu qorayo wargeyska loo yaqaan Israa'iil Huyum ee ka soo baxa gumaystaha Israa'iil weliba u janjeera dhanka oofaarkii Netanyahu ayaa waxa uu leeyahay ciidamada Israa'iil ee loo yaqaan IDF-ta ayaa isku diyaariyay inay ka hortagaan ama ay joojiyaan doonidaasi. haddaba maxaa keenay Israa'iil ilaa hadda in weerar ay ku qaadi weydo? Israa'iil sida ay sheegayaan doontaasi waxaa saaran ay leeyihiin gabadha u dhalatay wadanka Sweden ee lagu magacaabo Greta Thunberg oo ah qof u ololeeya cimilada adduunka iyo 11 qof oo u ololeeya arrimaha Falastiin oo ay kamid tahay gabar lagu magacaabo Rima Hassan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Yurub. Rima Hassan Mubarak waa gabar Falastiiniyad ah asalkeeda waxay ku dhalatay xeryaha qaxootiga Aleppo ee Suuriya markaasi dhanka Suuriya xigay. gabadhan marka waxay hadda maanta matalaysaa Faransiiska ay ku matalaysaa xildhibaano baarlamaanka Yurub. Israa'iil dhawaan ayay ka masaafurisay dhanka gumaystaha Israa'iil markii ay ka soo degtay gaar ahaan garoonka loo yaqaan Ben Gurion gabadhan oo caan ku ah inay u ololeyso dadka Falastiiniyiinta. marka hadda Israa'iil cabsida ugu weyn ay qabto waxay tahay haddii dadkan doonida saaran aad halkaas ku dishaan oo u badan dad dhalashada wadamada Yurub haysta waxa imaan doonta in iyaga iyo wadamadii reer galbeedka ay kala tagaan. marka cabsi weyn ayaa Israa'iil arrinkaas ka haysata ayaa leeyahay laakiin haddana dadka falanqeeya arrimaha bariga dhexe arrimaha Israa'iil waxay aaminsan yihiin Israa'iil inay u babacdhiga doonto dadkaasi inay xasuuqdo. Israa'iil marka ma ahan markii koowaad ee arrinkan ay samayso laakiin haddana dadka doonidaasi saaran qaarkood ayaa waxay ku eedeynaysaa in ay yihiin kooxo markaasi aad u taageersan iska caabinta Falastiiniyiinta oo ay kamid tahay gabadhan Rima Hassan oo ay sheegeen 7 Oktoobar inay ku tilmaantay weerarkaasi iska caabinta Falastiiniyiinta ay qaadeen waa sida iyaga leeyihiin mid sharci ah. sidaas oo kale qof lagu magacaabo Yasmin Akar oo u dhalatay Jarmalka iyagana waxay sheegeen inay u dabaaldegtay Iiraan markii weerarka ay ku qaaday dhanka Israa'iil. sidaas oo kale Israa'iil waxay dhaleecaynayaan qof kamid dadka doonida saaran oo lagu magacaabo Thiago Avila oo u dhashay Brazil oo isagana ka qayb galay aaskii hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrullah waa sida iyaga ay sheegayaan oo ku tilmaamay Xasan Nasrullah inuu ahaa shahiid iyo hogaamiye la ixtiraamo oo caalamka ka baxay. marka Israa'iil hadda marka waxay ilaa ay hadda eegaysa ayaa leeyahay xaaladda diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa wadamadan reer galbeedka ah. insha Allah wixii arrimahan ka soo kordhana dib ayaan halkan idinkaga soo gudbin doonaa biidnillah.